agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Umar Cabdilaahi Aadan oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay eeda maalintii shalay ahayd uu soo jeediyay xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo ka jawaabaya eedeymahaasi ayaa yiri iyo shaqaalaha madaarka ka shaqeeya oo ka baahiyay war aan saliyaad toona lahayn ugu horeyn dadka reer Somaliland sidii ka dhereysay mashruuca dawladda Kuwait ee ugu deeqday madaarada Somaliland wajigiisa hore wuxuu ahaa 10 milyan oo loo kala qaybiyay labada madaar ee caalamiga ah ee Hargeysa iyo Berbera oo mid 5 milyan wax laga qabtay iyadoo ay maamulayeen khubaro dawladda Kuwait ay soo dirtay ee kormeerayeen kelmadda ugu dambeysana ay iyagu lahaayeen labada mashruuc markay guul ku dhamaadeen madaarka Hargeysa la furay ayaa waxa muuqatay in madaarka caasimaddu u baahan yahay dibadda runway-ga oo 2 kilomitir 400 ahayd in la dhameystiro si diyaaraduhu ay xamuul toos oo ka qaadaan dawladda Kuwait iyadoo ku qaraacday 5 milyan oo dambe madaarka Hargeysa bixisay markaas su'aasha meesha taala waxa weeye haddii wixii hore si fiican loo maamulay oo musuq jiray dawladda Kuwait maxay 5 milyan oo dambe ugu deeqday dawladda Somaliland iyadoo 10 ka hore jiray waxa weeye dawladda Kuwait anaga lacag nooma dhiibto furayaasha garoonka mana lagu wareejiyaa dad khubaro ah oo Suuriyaan iyo Kuwaitiin isu jira Hargeysa degan iyaga maamula iyaga xisaab celinta sameeya iyaga tayada eega wasaaradda runtii wax loo qabanayo kaliya ayuu bay sheegataa mashruuca ku dheereen maayo oo dadka reer Somaliland way ka dheeraysan yihiin qodobka labaad in doonayna ka hadlo xildhibaanku si aan xaqiiqada ku waafaqsan uga hadlo waxa weeye xadeynta madaarka caasimadda runtii dadkan reer Somaliland ee degan madaarka agtiisu iyagoo oo ka turjumaya muwaadinimada iyo qiimaha dalkoodu la leeyahay bay waxay go'aansadeen inay madaarka dhulku u baahan yahay uga kacaan waayo madaarka cidna ma laha madaarka Somaliland oo dhan baa leh bulshada oo dhan baa leh xagaaga maanta aynu hadlayno 18,000 oo qof baa ka soo degay haddaan madaar caalami iyo diyaarad caalami iman ayna caasimaddu helin waxa weeye dadkeena dhibaatoonay iyagoo arrinta ka jawaabaya bay dhulkii madaarku uu u baahnaayo dhan uga kaceen iyagoo hal shardi uu codsaday waxay codsadeen wixii hanti ma guurta ka galay sida barkadaha beeraha balliyada iyo guryaha afartaas shay in loo celiyo labada wasaaradood ee hawlaha guud iyo beeraha ayaa qiimeeyay faylka in halka yaala ay arkaysan dhammaan dadkii lacagta aan ku siinay way si fiican u duuban doontaan qof walba aan lacag siinayna caaqilkiisa baa joogay gacantaan ka gelinay xafladii madaarka lagu furayayna madaxweynuhu joogay guddiga xadeynta madaarka wixii ammaan dadkan deegaanka ay u jeedisay waa goobjoog baa laga wadaa sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo warfidiyeenadu ay weydiiyeen wararka la xidhiidha guddida beesha uu ka soo jeedo agaasimuhu oo sheegtay inay ruqsadii kala noqdeen mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan ayaa ku jawaabay guddidii guud ee hore koonfurta Hargeysa oo madaarka xariisay oo wadada salaxle qabatay oo wax badan qabatay baan anagu dawlad ahaan aaminsanahay inay tahay guddida sharciga ee matashay dadka deegaanka iyaguna waxay ku baaqeen in shirweynihii deegaanka ay qaban doonaan guddi labaad la dooran doono waxaan leenahay namadaas anaga horta xil looma dhiibin kalsoonina lama noqon karaan madaxweynaha xilkan qaranka noo dhiibay haddaa wax isla haysaan oo doonaysaan marjaraha iyo dantan guud ee deegaankeena ka shaqaysaan meeshan dan guud baa lagu hayaa oo deegaankeena iyo ardayadiina ay ku kalsoon yihiin waxaan ka codsanaynaa aan u sheegayna inay ka soo qayb galaan shirweynuhu yimaadaan oo ninka xil doonayana waa halkaa yimaado laakiin ma aha inay korbeenta shirka qabtaan qof aanay marka horeba iyagu magacaabin iyo haddii cid kalsooni lagala noqdayna iyagu suldaankii guud ee marka hore lahayn uuna magacaabay uu kala diray uu sheegayna inuu cadho ku sameeyey marka saddexina cadho lagu sameeyey oo maalin shirka qabanaya annaga kalsooni lagama noqon karaan inkastoo agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Umar Cabdilaahi Aadan uu soo bandhigay faylal muujinaya in dadkii laga raray dhulkii uu soo gaaray ballaarinta madaarka caasimadda Hargeysa ay siiyeen dhammaan hantidii ka gashay ee maguurtada ahayd ayaa haddana warar aanu ka helay dad ka mid ah dadkii laga raray dhulkaasi ayaa waxay noo sheegeen in ilaa hadda ay leeyihiin hantidii loo ballan qaaday in xukuumaddu ay u celiso iyadoo arrintaasina waxba kama jiraan ku tilmaamaysa hadalka agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada Somaliland Umar Cabdilaahi Aadan oo isagu sheegay
inay dhammaan u dhammaystireen hantidii maguurtada ahayd ee dadkii laga raray dhulka ay ku lahaayeen agagaarka madaarka magaalada Hargeysa ee uu soo gaadhay ballaadhinta madaarka caasimaddu. Khalid Bulshaawi, Space Channel, Hargeysa.